maya 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 maya. السلام عليكم داودياش كوا فرها دودوبان كوا فرها دادير لي كوا فنكا جعل كوا أن فنكا جعلين كوا تاجرة كوا أني تاجرين أنت بوارين سلامية وحنا هاي بقول كدير جلينته سعيد جلير حلقة أيقا داوتنا وسعيد جلير فلنا دي أجن لكم عسبتين دي سبسكرايب دعي سكسية أدي أذن كم عسبيننا أصحابتينا إسكالا وذاقا مرولي با بقول كوحوني كرجينيا inaad taageero kal iyo laab ah garabkiisa bixikiisa midig istaagtaan oo saakor uu qaadaan ayuu rajaynayaa intii taageertana waad ku mahadsantihiin mar dhow waxaan u dabaaldegi doonaa 10k subscribers 10,000 oo subscribers ah ayaan u dabaaldegi doonaa hal bil ka bacdi markii aan channelka bilownay aad iyo u mahadsantihiin taageeradiina kal iyo laabka ah waan idinkaga mahadcelinayaa kun iyo coacherba okay waa maalin kale oo qurux badan hadii ay habeen ku taana waa habeen kale oo qurux badan maanta maxaan idin wadaa waxaan idin hayaa ninkan odaga ah abwaankan garsoorahan wanacinka ah ma ka yaabtay sida uu garsoorka sida uu maxkamadda dadka u saaro ma ka yaabtay ninkan waxaa la yiraahdaa abwaan aakhiro waxa aan ku baranay tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub uu dhamaada kaas haddana waxa uu hayaa oo garsoorka yahay tartanka Muqdisho Got Talent ayuu garsoorka yahay ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa abwaan aakhiro waa bare jaamacadeed waana abwaan labaantii waa nin abwaan ah waa bare jaamacadeed كله واحد رجينيا إنه جامعة كديجو أف صومالي إنه كديجو أيان رجينيا أما لغة الصومالية إنه جامعة كديجو أيان جعل هاي قار كميدا دت فربضن أو دت قار كميدا أصحاب تيدا أو أنين كانوا حكوا جينا وحي إيش يجين إن وحكا ديجو جامعة ومدا وقلت على مقالة مقدشو وأن أبوانا أف صومالي كحلير واحد شراء سوين يا جابيو oo sameeyay ajra dhabaantiina waa nin rugacada ah bal ila daawo isagoo qiimeynaya tartame soo galay tartanka waygintaas waa hagaag ma dhamaysayaad waa dhamaystiran maxamed axmed barnaamijkan ama tartankan aad ka qayb galaysaa waxa weeye Muqdisho Got Talent waxa weeye dhalinyaradu waxay ku soo bandhigaysaa hibooyinkooda kala duwan haday tahay hibo cod haday tahay hibo ciyaareed haday tahay hibo jilid ama majaajilo haday tahay hibo indha sarcaad haday tahay hibooyinka kala gedisan weeyaan ee ay dhalinyaradu leedahay dhalinyaradu bulshada kuwa ugu firfircoon weeyaan ugu dhaqdhaqaaq badan ugu nolol badan ugu maaragtay xarakaad badan adigu waad iska taagnayd mar kaliyaad qabsanaysay mar waxaad ahayd sidii nin geel la jooga ayaad isu taagaysay oo geel ilaalinaya mar sidii nin waraysi iskaga jiro oo weeyada hayaad u taagneed haddana waad heesiisay waa hagaag hibada codka aad soo bandhigtay ma aha cod la yaab leh noomaad soo bandhigino xiisihiisa leh oo maxaygiisa leh mucjisadiisa leh oo xaladiisa leh oo xiisihiisa leh soomaad bandhigin laakiin dee heestii xasan aadan qaadayay unbaad iska dul martay oo iska dul socotay oo aad iskaga heesay halkan hibooyin baa lagu soo bandhigayaa masraxan cidda soo fuushaa waxaa la doonayaa inay caalamka hibada ku jirta soo bandhigto la yaab leh dhalinyaranimo la yaab kale haday cod tahay codkiisa la yaabo xiisihiisa haday dhaqdhaqaaqiisa tahay haday okay markay sida tahay maya horta tartanka inta badan min bilow ilaa dhamaad isaga waxa uu dooranayay maya sida dareen loogu beero way adkeeday amaba looga helo aad iyo adkeeday waxaa jira tartamayaal fara badan oo marka uu la hadlayo uu la dhacay usha si fiican ula dhacay maadaama aysan soo bandhigin يعني ترتن أدو وناكسن أما هباء أدو صريسة ما دام إيسن صوب بندقين قرصورياشا كلا سيدي نينك اللي يرادو نينك اللي يرادا حيبرو ها يا شمالي أحمد شمالي
marka ay la hadlayaan xitaa tartamuhu hadduusan u qalmin inuu u gudbo wareega xiga waxay dhahayeen waad fiican tahay dee dadaal badan baad samaysay hase yeeshee weli wax baa kaa dhiman isi soo dhis ee tartanada dambe kusoo laabo hase yeeshee ninkaani runta oo qayaxan buu indhaha ka saaraa garsoore abwaan aakhiro runta oo qayaxan buu indhaha ka saara wuxuu yidhaahdaa wax hibe ah aad leedahay ma jirto ha soo lugo-in inaad soo lugo-do waa laga fiican yahay ha soo lugo-in buu yidhaahdaa waxaa leedahay qofka runta kuu sheega wax kaaga fiican ma lahan qofka haddii uu runta kuu sheego waxaa leedahay runta ugu daqar dhiig iga keen hase yeeshee been ha igula baashaalin yaa been waxaad rabto ha iga helin laakiin runta haddaad doonto igu daqar oo dhiig iga keen marka hadduu qofku runta ku sheego wax ka wanaagsan ma lahan ninkaa odaga ah ka waran haddii uu kaa qaado imtixaan waxaan u malaynayaa maalintii imtixaanka uu kaa qaadayo 2 maalin iyo 2 habeenay ka horeysay inaadan soo seexanin si aad imtixaankiisa ugu diyaargarowdo adigoo u diyaar maxaa yeelay waxaadan lahayn kuma siinayo beenna kuma sheegayo adeer intaan baad ku qaldan tahay qaladkaaga qaado tag isi soo diyaari wax ka wanaagsan ma lahan aniga dhab ahaantii waan taageeray aad baan u taageeray waana taageersanahay maadaama uu ahaa garsoore runta ka hadlaya qubinaa marka qofku uu soo bandhigo talentiga ama tayada uu leeyahay uu soo bandhigo waxaa wanaagsan in runta loo sheego la yiraahdo intaasood ku fiican tahay intaana waad ku qaldan tahay marka waxaa jira dad tiro badan oo daawadayaasha dadka ka daawada oo aad u dhaliilaya dhahaya dadka maxaa niyadda looga jibinaya maxaa sidaa loo yeelayaa tartankan waxaa lagu yaqaanaa nin la yidhaahdo Simon Cowell oo tartankan yani nin aad loogu qadariye ah ninkaasna waa nin aad u adag garsoorkiisu uusan caadi ahayn dhabaantii waxaan jeclahay ninkaas inuu yahay nin Ingiriis ah Ingiriis inuu yahay jeclahay waxa uu garsooraa tartanka haddii aad qaldanto wuu kuu sheegayaa haddii aadan heesaa fiican ahayn wadan codkaagu uusan tolmoonin wuxuu ku leeyahay codkaagu ma tolmoona iska daa ha ku lugoyn halkan haddii aad wax kale la soo shir tagto oo aadan ku wanaagsanayn ama aad si fiican wixii usoo bandhigi weyso wuu kuu sheegayaa waxaan kuma anfacayaan buu ku leeyahay meesha isaga carar aysan kobow kaaga dhammaanin xitaa marka qaarkood waxaa dhacday in lagugu qoslo adigoo tartanka kasoo qayb galay in lagugu qoslo waxa aad sheegayso inta la fahmi waayo lagugu qoslo ayaa dhacaysa xushmad darri maahan ma ahan in adiga lagu liidayo ee adiga ayaa doortay wax aan kuu qalmin adiga yaa kobkaa dheer haddii aad gashato ku socoshay kaa rabtaa kuma socon kartid marka kobkaa dheer haddii aad gashato Soomaalidu waxay tiraahdaa frimbi ninkii xada baa la yiraahdaa meel uu ku yeeriyo rabaa yaa haddii aad istiraahdo heesaa baa tahay cod fiican baa leedahay hibaad leedahay hase yeeshee markii masraxa la soo istaago aad isku xaarto waa frimbi nin xaday baa tahay meel uu ku yeeriyana waayey marka qofkaa yeelaysa ma lahan garsoorkuna sidiisa dhanba u fiican yahay marka waxaan rajayn doonaa insha allah in dad abwaana waxay yaqaana waxyaabahan lagu tartamo talentiga aad ugu dheereeya inay mustaqbalka soo bixi doonaan waxaa la hayaa intaasoo qof oo uu ninka odaga ah uu yidhi maya isagoo yani runta uu sheegaya hase yeeshee anigu hal maalin unbaan ka yara garsoorkiisa ka yara xumaaday intuu garsoorka ku jiray oo uu wiil dhahayo heest uu qaaday uu dhahayo heestii waad idnacsiin gaartay hase yeeshee wiilku wuxuu ahaa wiil codkiisu fiican yahay xuseen mukhtaar cumar heestanad qaaday ka sokow fanaankii allah u naxariistee xuseen tarabiya qaadi jiray heestani waxay ka mid tahay heesaha ugu humaagyada sarraysa heesaha soomaalida humaagyada ama aftahamada afmaldaha ugu humaagyada sarraysa ugu xiisaha sarraysa anigu waxay ka mid ahayd heesahan aad u jeclaa waaba diibnacsiin gaadhayba anigu gebigeedaba sidaa daraaddeed maya
kaamaal un baan ka yara xumaaday laakiin inta kale aad baan u taageersanaa haddana waan taageersanaya waxaana rajaynayaa inay soo baxaan yaa garsoorayaal badan oo la mid ah abwaan aakhiro inay soo baxaan ayaa rajaynaya tartanka muqdisho got talent waa amaba kii ka horreeyaba waxayna bareen in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo hibale oo wadanka ku nool dhalinyaro Soomaaliya horumar sameyn kara oo wadanka jooga inay jiraan ayuuna baray waxaan rajayn doonaa tartamadaas inay noqdaan tartamo mar waliba la qabto dhabaantii labadan tartamto waa la isku dhajiyay midkan la dhahay muqdisho got talent iyo kii ka horreeyay waa la isku dhajiyay oo yaani markuu kii dhamaada islakiin kana la bilaabay laakiin waxaan rabay in waqti la siiyo dadka isku soo diyaariyaan si yaani loo helo talent tira badan mar waliba waxaan ku celiyaa oo aan sheegaa in loo baahan yahay in tartanka noocan oo kale ah inuu gaaro gobolada oo dhan wadanka oo dhan inuu gaaro wadanka oo dhan dee laga soo tagay liimaado la yidhaahdo tartankii got talent baa la qabanayaa got talent baa la qabanayaa got talent baa la qabanayaa la yidhaahdo loo soo kala tartamo la yimaado laga soo qayb galayaa loo baahan yahay daawadayaal balanqayntii yareed ee ku saabsaneed ninka odaga ah la yidhaahdo abwaan aakhiro aad baan u taageeraa halkaa ayaan kusoo gabagabeynayaa waad ku mahadsantihiin daawashada daawateen haddii aad ila mid tahay oo aad ninka odaga ah ama aad dhaliil u hayso aniga in yar baan dhaliil uga hayaa hase yeeshee sidiisa kale inuu fiican yahay oo uu yahay nin loo baahan yahay ayaan saxiixi karaa maanta oon buug iyo qaliga ku duugi karaa ma fahanteen marka haddii aad ila mid tihiin waa idin soo dhawaynayaa haddii aadan ila mid ahayna oo aad iga fikir duwan tihiinna sidoo kale waa idin soo dhawaynayaa dee dhanka hoose ku xusa dhaliisha uu leeyahay iyo ammaanta uu leeyahay sida aniguba halkan kaga sheegay dhaliisha uu leeyahay ammaanta uu leeyahay laakiin 90% aniga taageerada anu hayo ninka odaga ah waa ha inta inagu kulmayno muuqaalkiisa xiga daawadayaal waxaa idin leeyahay nabadgelyo